beesha caalamka ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud saartay cunaqabatayn degdega kadib warkii dhawaan ka soo baxay ee halkan aan kugula wadaagay madaxweynuhu iscasilaad ayay markaasi ka dalbatay waaxda la talinta ee aqalka cad ee Mareykanka waxaana madaxweyne Donald Trump iyo xubnihiisaasi la taliyaasha ay wacad ku mareen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud la soo taagi doono maxkamad intaas wixii ka dambeeyay waxa u midowday qaramada midoobay iyo beesha caalamka oo dhan waxaana madaxweynaha looga yeeray xerada xalane ee magaalada Muqdisho isaga oo wajahaya caqabado dhowr oo isbiirsaday iyo cilado waaweyn xasan sheekh maxamuud mar yaa iga badbaadiyo dabinkan ayay markan ka taagan tahay wax badan oo lagu eedeeyay barakicinta shacabka boobka xoolaha dadweynaha iyo dhibaatooyin kale oo aan xad lahayn markan lafiis ayuu u baqayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuuna wajahayaa caqabado dhowr waxaan ku soo gudbinayaa warbixin xasaasi ah oo la xiriirta beesha caalamka iyo tallaabada ay ka qaadayso madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale mowduuceena waxa ku eegaynaa dhaqdhaqaaqyo aan inaba caadi ahayn ayaa ka socda gudaha Soomaaliya gaar ahaan caasimadda dalka oo ah Muqdisho dhaqdhaqaaqyadaasi waa dhaqdhaqaaqyo ceenka ah waxaan kaga hayaa warbixin iyo macluumaad dheeraad sidoo kale war cusub ayaa ka soo baxay markabkii shidaal ee lagu afduubtay aagga xeebaha Soomaaliya muxuu yahay wararkaan oo soo dhan ayaan soo koobayaa ilaa inaad nagu soo biirto channelka subscribe soo tiraado saaxiibadaana u sii share gareyso waa mahadsan tahay waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ah ee Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday Dr. Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu wajahayaa culeysyo iyo caqabado aan xad lahayn waxaana ugu daran warka dhawaan ka soo baxay Mareykanka ee la xiriira inuu iscasilo kana tago shaqada kadibna isaga iyo qoyskiisa la saarayo cunaqabatayn ma aha isaga oo kaliya xaaskiisa caruurtiisa iyo xubnaha qoyskiisa ugu muhiimsan ayaa markaasi cunaqabatayn la saaraya dhibaatadan waxay ka dhalatay baa la yiri musuqmaasuq iyo ku takrifal awoodeed iyo luusashada hantida beesha caalamka iyo canshuur ay bixinayaan muwaadiniinta Mareykanka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay waaxda la talinta dhinaca markaasi waa hay'adda lagu magacaabo Strike Global diblomacy oo dhawaan warka ay soo saartay ku xaqiijisay in xasan sheekh laga codsanayo ama laga dalbanayo inuu iscasilo kadibna cunaqabatayn la saarayo waaxdaasi warkeeda sida ay tahay Donald Trump ayaa u aqbalay intaasna wixii ka dambeeyay dhaqangelinteeda waxa bilaabay safiirka Mareykanka ee u jooga Soomaaliya ee Muqdisho fadhigiisa uu yahay xalana ayaa looga yeeray madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuuna ku qasbanaaday inuu halkaas tago iyada oo la weydiiyay su'aalo dhowr ah oo beerka laga garaacay madaxweynaha Soomaaliya hadda waxay muuqanaysaa in ay ku jirto xaalad khatar dalkuna doorashadiisa muran uu ka taagan yahay wax ka bedelkii dastuurka buuq badan uu dhaliyay sidoo kalena madaxweynihii Soomaalidu waxay tiraahdaa madaxa meel ka sareyso oo la salaaxay ma jirto haddii madaxweynihii Soomaaliya uu u hanjabayo wiil cad oo dhabana xiiran oo 40 sano jira xasan oo 70kii qadaadiic u raacday waxaa la leeyahay waa musiibo ku habsatay Soomaaliya musuqmaasuqa ayaa ceebta ugu weyn ee ilaa hadda loo jeediyay 70 jir xoolaha ummadda dhacaya maxaa laga yeerayaa waa wax lala yaabo oo ilaa hadda la leeyahay Soomaaliya waxay ku sii dhacaysaa god mugdi ah oo haddii aan laga qaban khatarteedu markaasi sanado Soomaaliya ay ku sii jiri karto madaxweyne xasan maxamuud eedaas waa loo jeedinayaa beeshii caalamkuna dhawaqeedu waa isgaaray dhinac kasta geesta kale waxaan rabaa inaan kula wadaago walaa xoogan ayaa laga muujinayaa xaaladda shaqaalaha saarnaa markab shidaal oo lagu afduubtay meel u dhow xeebaha Soomaaliya iyadoo qoysaska la haystayaasha ay sheegeen inay heleen hanjabaado toos oo ugu yimid kooxaha hubeysan ee markabka qabsaday qoysaska badmaaxiinta ayaa sheegay in wada hadallada lagu doonayo sii deynta shaqaalaha ay wajahayaan caqabado cusub halka afduubayaashuna ay ku hanjabeen inay dilayaan qaar ka mid ah la haystayaasha haddii aan muddo kooban gudaheed laga bixin lacagta madax furashada ah ee ay dalbanayaan ragga haysta sida ay sheegeen ehelada shaqaalaha 8 muwaadin oo u dhashay Masar iyo 4 muwaadin oo u dhalatay India waxay wajahayaan khatar sii kordhaysa kadib markii kooxda afduubka geysatay ay sare u qaaday cadaadiska la xiriira bixinta lacagta madax furashada waa la ciqaabaya waa la jirdilayaa iyagoo calaacalaya borooranaya ay wacayaan qoysaskoodii masaarida iyo induuska ah oo ay leeyihiin lacagta madax furashada hanagala bixiyo xaaska mid ka mid ah badmaaxiinta ayaa warbaahinta u sheegtay in heshiis hore
laga gaaray lacagta madax furashada ah uusan dhaqan kale kadib dib u dhac ku yimid habraacyada xawaalada lacagaha. arrintan ayaana la sheegay inay dhalisay cara ay muujiyaan afduubayaasha oo markii jeebkooda dhaqaaluhu dhaqso ku soo gaari waayay way xanaaqeen baa la yiri. waxay intaasi ku dartay in kooxda hubeysan ku hajabtay in qaar ka mid ah shaqaalaha u wareejin doonto deegaano buraley ah oo fog si cadaadis dheeraada loo saaro milkiilayaasha markabka iyagoo dib u dhac markaas ku keenay ama dib u dhac ku yimid lacagta hadallo xoogan ka muujiyay. dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto xaaladda shaqaalaha la haysto iyadoo kaashanaysa safaaradda Masar ee Muqdisho iyo hay'adaha ay khusayso ee Soomaaliya ayayna xaqiijisay arrintan. wararka aan helayno ayaa tilmaamaya in xiisadda sii korortay kadib markii milkiilaha markabka uu codsaday waqti dheer oo lagu dhameystirayo bixinta lacagta madax furashada ah balse codsigaas si cad waxa u diiday afduubayaasha. kooxahan ma kooxo burbacadbadeed ahaa ma kooxo ururdiimeed oo sida Daacish oo kale ahaa lama ogo. khubaro ka takhasusay arrimaha maraakiibta ayaa sheegay in hanjabaada noocan oo kale ah marar badan loo adeegsado cadaadis nafsi ah oo lagu dardargelinayo bixinta lacagta madax furashada ah iyagoo xusay in kooxda afduubka geysatay aysan u muuqan shabakadihii burcadbadeedda ee sida nidaamsan markaasi ugu howlgali jiray xeebaha Soomaaliya sanadihii hore. gudoomiyaha ururka saraakiisha maraakiibta ee Masar Captain Sayid Al-Shadali ayaa waxa uu sheegay in fariimaha ay dirayaan afduubayaashu ay u muuqdaan kuwa lagu cadaadinayo dhinacyada dhinacyada ku lugta leh heshiiska madax furashada si loo dedejiyo markaasi ama si loo dedejiyo gunaanadka wada xaajoodka. aragtada Nooreeb saaxiib waa mahadsantahay muuqaalkan ila daawo.